haatanna degsiimo reer guuraa ah oo ku nool deegaanka hoos yimaada degmada badhan ee gobolka sanaag ayaa xoolahooda ka maalgeliyey waddo xagaaf ah oo dherarkeedu yahay 37 kilomitr taasoo ay ugu talagaleen in gawaadhidu la soo marto biyaha iyo raashinka. dhallinyarada deegaankaas oo hawsha xooggeeda gacanta ku haya odayaasha deegaankaasina waxay dhallinyarada u fidiyaan talo iyo taageero. haddaba maxamed xasan dhalo oo dhowaan deegaankaas tegey ayaa warbixintan inooga diyaariyey. waa ku dhowaad 40 rag reer guura ah oo bannaynaya waddo gawaadhidu adeegga ula soo marto deegaankooda. waxa ay shaqadan soo wadeen 8 sano ee ugu dambaysay oo ay sameeyeen xagaaf dhan 37 kilomitir. shaqadan hadda kaliya ma bilaabane. maxamed axmed faarax oo ka mid ah odayaasha degsimadan baadiye ee jidka sameynaya ayaa iga sheekeeyey baahida wadadan keentay. marka isku tashi badan baanu sameynay dadku markuu xanuunsado haddii ilaa safarka hayaanka reerku markuu guurayo wax badan baanu na soo food saaray. marka waxaanu isku tashi baanu sameynay. isku tashigaas wuxuu yahay inaanu waddo keenno caana badan oo aanu baran ka soo dhaqaajo. ragga wadadan sameynaya degsimadoodu waa kuwo inta badan ku neg deegaankan oo ka tirsan buuraha calmadow ee gobolka sanaag kaas oo ka mid ah dhulka ugu cagaaga badan Soomaaliya oo ay horay ugu yaraayeen jidadka gawaaridu marto. midda hadda laga shaqeynayo waxa qoysaska miyigu ku maalgeliyeen xoolahooda sida uu mar kale ka waramayo maxamed axmed. hay'ado wax maalgeliye iyo kuwa bariis bixiye iyo ma jirin. arigayaga baanu qaybna iibsan jirnay qaybna ku qalan jirnay. qaybna waa iibsan jirnay raashin baanu soo siisan jirnay qaybna waa ku qalan jirnay. iyo nafaca kale ay leeyihiin caanaha iyo haddii ilaahay qadarayo waxyaabahaas oo dhan baanu ku maalgelinay wadada aad aragtay. sida jidkan howlaha shaqo ee reer guuraagu wada jirka u qabanayo waxaa ka horeeya shir inta guurtidu iclaamiso la isugu yimaado kadibna lagu gudoomiyo talo la wada gaaray. ibraahim cabdi sugulle waxa uu ka mid yahay odayaasha shaqadan ku garab taagan dhalinyarada. reer miyigu waa dad isku xidhan oo haddaba qadarkeeda leeyahay dhaqankoodu wuxuu yahay dhaqan isku xiriirsha. waxa dhaqanka keenaya odayaal baan leenahay. odayaashu markay ay soo jeediyaan wax ku khaafiya ma jiraan. nin walba oo bisiicid ku noqonaya. sidaa darteed waxaan nooleynaa waxba fakir baan soo diinayna. fakirkaas wuxuu yahay warheedha wadada si halka waxa libaan uga gaadna ama haddaba qadar wada furana ama haddii ceel ugu qodana ama haddii qadar naanka uga samaysan sidii wasu raacanay wasu wada waafaqnay waa samaysanayna waa ku dhaqaaqeena. waka hay'ad lacag kaga badoono dawlad lacag kaga badoono bacbistan lacag kaga badoono xoolaha ku samaysana markii aanu samaysano waa kaas siyaasad horumar ugu gaaray. tabta xoolaha shaqadan lagu qabanayo reer guuraagu u qaybsado waxa lagu qorsheeyaa bilowga shirka iyada oo nin walba qoondada uu kaga qayb galayo loo eego xoolaha xirada ugu jira. ismaan maxamed timir waa gudoomiyaha deegaanka caana badan oo shaqadani ka socoto. ariga ninkii waxa lagu qaybinayaa calaabil baa wax loogu qaybinayaa calaa shahar. ninkii shaharkii wuxuu qabaa $100 $150 $200 ba ugu badan. ninba inta xiradiisu leegtahay baa la miisaamaya. ninka ariga badan waa 200. ninka dhexdhexaada waa 150. ninka kale waa 100. xooguna waa sabiilullah. markii ay 8 sano si wada jira uga shaqeynayeen iyaga oo arigooda intifaacsanaya ayay dhamaystireen xagaaf deegaanka ku xira degmada baran oo 37 kilomitir kadibna waxa ay bilaabeen waddo kale oo deegaankooda ku xirta degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag. waxaan ugu heeseynaa heesa dhaqmeed. waa sida xirfadaha kale oo dhiirigelin kama maarato shaqadan raggu wada jirka u qabanayo howlaha miyigana mid walba sidaas ayay u leedahay hees howleed u gaar ah oo goobteeda looga jiibsho. wadada markaan sameynayno waxaan leenahay wadadii hore waa weeri jiray dawanayo wadalkaagi deegaankani waxa uu ka tirsan yahay buuraha calmadow ee gobolka Sanaag kuwaas oo ka mid ah meelaha Soomaaliya ugu qabow waxaana ku badan dhirta oo waa kaymo madaxa iskula jira iyadoo mararka qaarkoodna ay soo fariisato ariyaamo iskaga ka gudbaysa in aad meel dheer wax ka aragto. arrintaasi ayaa sababtay in casar dheer shaqada laga rawaxo maalintii aan joognay. laakiin inta aan loo caraabin xaafadihii saaka laga yimi ayaa barbaartu halkan ka jabsadeen ciyaar dhaqameed. ciyaaruhu waa dhowr jaad oo hadba mid lagu jeebinayo laakiin gobolka Sanaag waxa ugu caansan kuwa laga ciyaaro jaandheerta.
casar aan reer guuraa cabaar la jiibinay kadib waxaan baran u maray jidka dadka deegaankani sameeyeen iyaga oo xoolahooda biilanaya. maxamed xasan dhalo, degmada Badhan. aad u mahadsan maxamed xasan dhalo oo warbixintaasi inoo diyaariyey. waxaa ku saabsaneed reer guuraa reer Sanaag ah oo isku dayaya inay samaystaan waddo ay gawaadhidu ula soo marto biyaha iyo raashinka ay u baahan yihiin.